كل سيد اللي نسعد به حين وطن البدء أي هوش نسعتي وإحنا كمان شقينا نيركا يروح عوضنا الدولة هوسة الحمد لله هوش عسير سعتي وحنا تصور دقني دامر كوا نويا لا كومبليت سوى حكي دنين وحكنا صور دقني شيء وإسناد فوت المرة مستر إن شاء الله تعالى عيدي أورينا عن دقني وما أنت فرشاد دي هوش ذا والله وحرتينا إن شاء الله تعالى كل هوش عسير السوق ضخ بدن إنه قلنا ما أتوقع نقول لا لكن واحد دون 45 days إن شاء الله تعالى نخرج بعض ماكسيمم إنه قلنا ما تابل ده أما أكيرا طبعا دي أن وحنا نقول مع قبل نقول إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله مر لجاني إلهي ما هدي ويومات ودويكي بور جده هذي اللي صبرين عيو وحنا ما أنت ما حد أنا له دولة العصر كل مية محمد سيراي وكمل عليه هاي يقولها الدجاجة ما يركا أنت هسا ما حد يسكر يد دوينه إلهي كذب أنت هذا ما تيسكره وأنا هم بليين يا مايركا يو أنت لا شقي سبا ما أنت وضدك مقال ده اللي وضوين عشان الله بسمين يو هو ضل له هرمركا وذا ولي جيم وضع الله يقرب جلو وضدنا أو عبر كذا وديه هي كيلومتر يو شنبقل وماشى وضدنا وين مقالة ده فهمتي ومين كوركي halkii wadadii ugu weyneed ee wadooyinka dhisayna ugu weyneed weey waxaana gabagaba ka tahay mashaariicdii 2013 kan doonayna inaan dhamaystirno ayay gabagaba ka tahay horumarku sidoo socdo waad arkaysaan kuwii horena soo dhamaystirnay kuwii 2014 kan imika feasibility study la sameynaya laakiin waxa weeyaan horumarka in meel loogu soo wada jeesto oo dadku mas'uuliyiintu ay gartaan xilkii loo egmaday inay gartaan baa loo baahan yahay wax kasta oo dib u dhac ku yimaada waa waxay ku keeneen mas'uuliyiintii loo egmaday inay ummadda wax u qabtaan qaar ka mid ah runtii waana arrin u baahan inay bulshadu ka gilgilanto wixii khaladana iska qabtaan wixii saxna ay taageeraan haddii la yiraahdo shaqooyin badan oo caqabado golaha dhexdiisa ka socon way jiraan laakiin waxa weeyaan qof wixii wax lagu qaban lahaa doonaya isagoo inuu wax cuno dawmad wax u qaban maayo bulshada ayaanu leenahay ka tashada culumadiin waa ka hadleen salaadiintu way ka hadleen arinta waxaan leeyahay bulshada boorama ka tashadaan wixii nabadgelyada iyo horumarka degmada khalkhal ku leeyahay magaalada awaadu downa wadadan taasina waxa isku xidhaysaa wadada Hargeysa ka timaada ee dhigta ilaa waxa isku xidhaysaa bariishka laga bilaabi doono xaafada Sheekh Cismaan ee jeelka ku dhaadhacaysa dilaahda safarka ceergaaba waa mid kulli khuseeya degmooyinka Soomaaliland oo dhan waa shir markii hore la doonay degmooyinka kale laga qabtay laakiin markii dambe waxaan isla garanay in halka lagu qabto markaa ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ayaa horseed ka ah ururada dawladda hoose ee geeska Afrika iyagana oo ku soo casuuno imanayaan UN way imanayaan waxa laga hadlayaana sidii wax looga qaban lahaa xoojinta wax qabad ee dawladaha hoose hadii la yiraahdo markuu ugu yar yahay la 4 cisho qaadanaya hadii la yiraahdo kulli waana masaafad dheer waa magaalada Ceergaabo